Wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad nagala socotaan iyo si walba aad noola socotaan halkani waa ummadda production. Waxaan idin leenahay maalinimo wanaagsan, habeennimo wanaagsan, xilli walba ku tahay wanaagsan oo wacan. Ku soo dhawaada barnaamijkeennii maxaad ka ogtahay oo isbuuc walba mar halkan aan idinkaga soo gudbinno. Barnaamijkeenna inta badan waxaynu ku soo qaadanaa waxyaabaha aynu isleenahay dhegaystayaashiina, daawadayaashiina inta badan waa ay ka faa'iidi karaan haddii aad u sheegtaan. Waxaynu ku soo qaadanaa inta badan xayawaanka iyo waxyaabaha ayaga u gaarka ah ee aynu isleenahay way kaga duwan yihiin xayawaanada kale. Barnaamijkeena maanta waxaa miiska inoo saaran dacawo ama dawaco hadba sida aad u taqaano ama deegaanka aad ku nooshahay looga yaqaano. Haddaba daawada waxaan kaa codsanayaa waxa aad ka taqaanay iyo waxa aadan ka aqoonin ee aad ka faa'iiday barnaamijkan inaad commentiga hoose nagula wadaagto. Sidoo kale waxaad inoo soo sheegi kartaa wixii dheeri ah oo aad adigu isleedahay waan ka tagnay si ay daawadayaasha kale ee adiga kula midka ah uga faa'iidaystaan. Aynu bilownee, ma ogtahay daawade in dawacadu ay shanqarta aadka u hooseysa maqasho? Saynisyahanada caalamka ayaa waxa ay sheegaan in dawacadu ay leedahay dhaga maqli kara shanqarta aadka u hooseysa sida dhawaaqa ay soo saaraan gacmaha saacadda oo aad u adag inay bini'aadamka maqlaan ilaa inaad dhegtaada u dhoweydo mooyee. Waxaa la sheegaa shanqarta aadka u hooseysa inay dawacada ka maqli karto meel masaafo ahaan jirto 35 mitir. Mase ogtahay daawade in dawacadu ay ordi karto halkii saac 48 kiiloomitir. Marka loo eego masaafadaas ay ordayso, waxaa la sheegaa dawacada keliya inay isku daydo inay ordo xilliyada nafteeda khatarta ay soo wajahdo. Mase ogtahay daawade in dawacadu ay leedahay 42 ilkood halka aadanaha uu ka leeyahay 32 ilkood. Taasi macnaheedu waxa waaye 10 ilkood ayay ku dheer tahay. Ha isku dayin inaad la dagaalanto weliba adigoo isticmaalaya qaniinyo. Daawade ma ogtahay in saynta dawacadu la sheego inay ka kooban tahay 3 meelood meel jirkeeda oo dhan. Taasi macnaheedu ay tahay saynteedu in ay tahay mid dheer. Daawade ma ogtahay in dawacadu ay dhalaan sanadkiiba hal mar? Mase ogtahay daawade in dawacadu ay u qaybsanto ilaa 12 nooc oo ku kala nool daafaha adduunka? Daawade ma ogtahay in dawacadu ay ka ugaarsi badan tahay habeenkii marka loo eego ama loo barbar dhigo maalinkii? Ma ogtahay daawade in dawacadu ay samayn karto 40 cod oo kala duwan sida ay sheegeen saynisyahanadu? Mase ogtahay daawade in dawacadu ay ka mid tahay xayawaanka ugu urka badan marka loo soo dhawaado oo uu jirkeeda soo saara ur aanan loo adkeysan karin? Mase ogtahay daawade in dawacadu marka uu dhinto mid ka mid a iyaga inay u murgoodaan ama u tiiraanyoodaan? Daawade ma ogtahay in shinka dawacada ama xilliga uurka ay sido uu noqon karo inta u dhaxayso 51 maalmood ilaa 53 maalmood? Daawade ma ogtahay halkii mar in dawacadu ay dhasho 4 ilaa 5 cunug? Mase ogtahay daawade in celcelis ahaan dawacadu ay noolaan karto 1 ilaa 3 sano walow la sheego qaar iyaga ka mid ah oo noolaaday 12 sano? Ma ogtahay daawade in dawacada wadnaheedu uu qaraacmi karo 1000 jeer halkii daqiiqo? Mase ogtahay daawade in dawacadu ay noolaan karto biyo la'aan muddo fog? Daawadayaal, intaa maanta waxaynu ku soo koobaynaa barnaamijkeennii maxaad ka ogtahay oo aan ku soo qaadanay dawaco ama dacawo hadba deegaankaaga sida looga yaqaano. Waxaan isleeyahay barnaamijka maanta wax waa ka faa'iiday. Haddii aad wax kale noogu daraydo, fadlan qaybta hoose nagula wadaag wixii kale ee aad adigu isleedahay waa laga faa'iidi karaa. Waxaan sidoo kale inka rabaa xayawaanka kale ee aad isleedahay hala soo qaato barnaamijka ku xigo. Fadlan nagula wadaag qaybta hoose adiga oo magaciisa iyo waxyaabaha uu uga duwan yahay xayawaanaadka kale ee in lagula wadaaga aad rabto noo sheegayo. Tani intaynu ku kulmayno barnaamijkan oo kale ah, waa anigoo Axmed Maxamed ah in kaga tegaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.